وسلم maanta waxaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland u yeeray shir aan caadi ahayn xubnaha golaha wasiirada dhammaan waxaana nuxurka iyo ujeedada ugu weynay waxay ahayd in goluhu uu falanqayn iyo dood xooga ku sameeyo sidii looga hortagi lahaa ama wax looga qaban lahaa dhibaatada qiimo dhaca shilinka Soomaaliland lacagta Soomaaliland oo isticmaalkeedii uu soo ururayo soo koobmayo madaxweynuhu wuxuu u saaray guddi arintaas ka kooban bangiga dhexe mas'uuliyiintiisa wasaaradda ganacsiga madaxdooda iyo wasaaradda maaliyadda guddiga madaxweynuhu saaray waxay sameeyeen daraasad bay baryahan oo dhan wadeen xog ururin iyo talooyin iyo wax la xidhiidha waxay golaha soo hordhigeen maanta muxuu ahaayay aragtiyo xal u noqon kara sidii dalkan looga badbaadin lahaa sicir barar iyo qiimo dhac ku yimaada cumladda qarankani leeyahay dalkani cumladda uu leeyahay ma aha dollar ma aha bir ma aha lacag kale waa lacagta shilinka Soomaaliland wadan walibana wuxuu leeyahay cumladu leeyahay oo ah astaantiisa kamida astaamaha qaranka waxa aynu marxaati ka wadanahay dhamaanteed oo aan cidina dafirayn in qiimihii lacagta Soomaaliland hoos u dhacay lacagtii sarifka dollarka marka loo eego uu kor u kacay waxa isweydiin leh waxyaalaha arrimaha keenay waxa laga yaabaa dad fara badan inay meelo khaldan ay farta ku fiiqaan anagu waxaanu nahay xukuumaddii waddankan maamulaysa xaqiiqadana cid walba waanu uga xogogaalsanahay cumladana waa tii aanu mas'uulka ka ahayn haybad inaanu yeelno inaanu dhowro muxuu ahaa waataan mushaharooyinka qaranka ku bixino muxuu ahaa arrintaa iyada waxaanu u aragnaa oo goluhu uu ka midaysan yahay doodii ka soo baxday in ay sababo dhowri arrintan sababu yihiin kow waxa sababo ah lacagtii adkeyd ee dibadaha qarankan ka soo geli jirtay oo yaraatay waxa ka mid ah lacagtii xawaaladaha oo sanadkiiba dhowr boqol oo milyan dalka soo galaan oo muxuu ahaayay sidii hore ka yaraatay waa ka qayb waxa kale oo iyadana soo kordhay oo saameyn weyn inagu leh xoolihii noolaa oo ah qaniimadii aynu lahayn oo ka dhigan shidaalka maanta aynu leenahay oo iyadana la joojiyay dhoofkeedii oo ay naga soo galaan sanadkii dhowr boqol oo milyan oo dollar saasoo kale xawaaladana waxay naga soo galaan dhowr boqol oo milyan oo dollar waxa kale oo iyadana saameyn weyn leh oo aan cidina dafiri karayn xaaladda abaarta ba'an ee muxuu ahaayay iyaduna qayb weyn ka ah arrimahan waxa kale oo la fahanteedu saameyn ku leh muxuu ahaayay qaabka loo ganacsatadu dollarka degdega u baahan ay suuqa ay u isticmaalaan oo dacaayad iyo walwalgelin iyo dollar degdega say u helaan lacagii Soomaaliland doonayeen markiiba degdeg u xaraashaan kama mid aha sababaha kama mid aha si adag baanu u difaacaynaa oo muxuu aanu u saxaynaa dawladahan lacaga dheeraada oo shilinka Soomaaliland ah inaananu suuqa gelin ma gelino waxa marxaati laga yahay 2015 lacagaanu soo daabacnay ma jirto 2016 lacagaanu soo daabacnay ma jirto oo access oo lacag ka dheeraada oo suuqa aanu ku sii daynay ama si xun u isticmaalay ama aanu siyaasado u adeegsanay ama kharashyo dheeraada oo aan budgetka dawladda ku soo aroorin oo aanu muxuu ahaayay isticmaalay ma jiro dawladdu waxay isticmaashay oo kaliya miisaaniyadda qaranka lacaga ku jira lacagaanu xoojinay oo qaranka u xoojinay oo ka soo saaray muwaadiniinta jeebabkooda oo cashuurtii aanu ka ururinay ayaanu ku isticmaalaa baahiyaha kharashka dawladda ee kala duwan hadday tahay mushaharka shaqaalaha kuwa ciidamada kuwa mas'uuliyiinta mashaariicda horumarinta waxaasoo dhan waxaanu ku isticmaalaa lacagta
ويسحدها lacag dheeraado marka aanu suuqa gelinay oo khilaafay qaacidadii dhimaanka iyo supply-ga baahida iyo muxuu ahaayay lacagta suuqa gelaysa ma jirto hase yeeshee waxa sabab u ah duruufaha abaarta xoolaha la joojay iyo muxuu ahaayay lacagaha adkaado yaraday scarcity of dollar wax afka qalaad lagu yiraahdo iyadoo ay lacagihii qalaadaa noqdeen waxa dibadda wax lagaga soo iibiyo qaadka kamida maalin walba qaad walayaashu waxay u baahan yihiin milyan dollar qaad ay ku bedelaan ay markay Soomaaliland ku iibiyaan lacag dollar oo adag oo markay si degdeg ugu baahan yihiin keeni karta inuu meel adag inuu ribix u saaro oo qiimo kordhiya oo mararka qaar kood dacaayad ku kordhin kara ama baahi ku kordhin kara arrimahaas waa arrimaha sababta waxa kamida lacagtii Soomaaliland oo muwaadiniintii lahayd ay isticmaali weeyday oo ka kalsooni baxday oo ay ka door bidayaan inay isticmaalaan ama ku hawl yareystaan lacagaha electronic money-ga ee lagu diro ee qalaad lagu diro muxuu ahaayay saadka iyo dahabka oo gaadhay sentis in cadayga lagu iibsado kabaha baalashka in lagu bixiyo baska in lagu raaco waxay meesha ka saareen automatically guud ahaanba baahidii lacagta Soomaaliland loo qabay waxay ku siqaysaa in lacagteeni ay noqoto lacag aan loo baahnayn oo marka hadda suuqa lagu soo qobo marka xaaladdu sidaa tahay waxaanu nahay xukuumaddii qarankan u talinaysay sifada sharciga loo doortay ee lacagta ka mas'uulka ahayd ummadana ka mas'uulka ahayd si cadaalada oo xikmad iyo xaq soo rabaan u maamulaynaa waxa naga go'an in lacagta Soomaaliland ay dalkan ka shaqeyso in ay qiimo yeelato si adag baanu u difaacaynaa in lacagta shilinka Soomaaliland la qiimo tari karin si adag baanu uga hortagaynaa in lagu soo koobo goobo yar waanu uga hortagaynaa anagoo arrimaha ka turjubayna waxaanu maanta falanqayn iyo dood dheer oo adag oo golu yeeshay si buuxda waxaanu u qaadanay go'aamo adag oo qaraad oo saameyn ku leh muwaadiniinta Soomaaliland oo saameyn ku leh dawladda iyo xukuumadda oo saameyn ku leh ganacsatada shirkadaha waaweyn ee ka ganacsada sarifka lacagaha qalaad ee isticmaala electronic money-ga go'aamo dhammaantoodba saameyn ku leh baan qaadan oo dhowr iyo 10 qodob ah waxa waajib ah lacagta Soomaaliland shilinka Soomaaliland muwaadin waliba inuu isticmaalo waa dambi qaran in lacagta wax lagu iibin waayo laguna iibsan waayo lana isticmaali waayo wuxuu waajibkaasi qabanayaa dhammaan shaqaalaha dawladda ciidamada qaranka madaxda muwaadiniinta kuwa guryaha kireeya kuwa iskuulada leh kuwa meherad dhammaantood waxa waajibka lacagta in la socodsiiyo oo niyada la geliyo la aamino lacagtan qaranka cumlada qaranka waxa muxuu ahaa xukuumaddu ay qaadatay go'aamo muxuu ahaa lagu meel marinayo arrimahaas iyo tabo iyo xeelado waxa sidoo kale daraasad rasmi ah dawladdu ku samaysay oo hay'adihii shaqada ku lahaa soo xaqiijeen lacagta electronic money-gu inay saameyn ku leedahay qiimo dhaca shilinka Soomaaliland iyo isticmaal la'aantiisa iyadoo taa laga duulayo maanta laga bilaabo waxa go'aan goluhu ku gaadhay xukuumaddu ay go'aansatay in la joojiyo lacagaha saadka iyo dahabka waxa la wixii ka yar 3 raqam wixii 3 raqam ka yar 3 digit number boqol wixii ka yar $100 wixii ka yar laguma diri karo waqti dhow oo systemka laga saari doono oo amar adag siin doono shirkadaha leh ee saadka iyo dahabka Telesom iyo Dahabshiil Group waxa mamnuuc noqon doona in la diro lacagta wax lagu kala iibsado qof loo xawilo telefoon lagu shubto dhammaan mamnuuc way noqon doonaa waxa u furan lacagaha inta ka badan $100 wixii ka weyn wuxuu ahaa waa la isticmaali karaa annagoo tixgelinayna ilaalinayna shirkadaha muwaadiniinta xukuumadda xil baa ka saaran shirkadaha qaranka ee gaamuray ee waaweyn in la ilaaliyo waxay ka mid yihiin jecladana maamulayno iyagana waxa waajib ku ah inay ummadan u xaq dhowraan inay ummadda u naxariistaan qarankana sumcadiisa iyo jiritaankiisa dhowraan ribix in qof helo waxa ka muhiimsan in jiritaanka ummadan iyo midnimada iyo wadajirka ummadda in la dhowro sidaa darteed go'aankaasi wuxuu noqonayaa go'aan hor oo la fuliyo
bangiga Somaliland ayaa soo saari doona saacadaha ay qaadan doonto inta systemka laga saarayo dabagalkiisana isaga u xil saaran sariflayaasha waxa iyadana go'aamada maanta soo baxay waajib kaga dhigayaan in lacagta doolarka aan lagu sarifi karin $100 wax 7,000 halka doolar ka badan oo u dhigma $100 $700,000 arrimahaas oo dhan dunuub baa ka waajibaysa iyo qawaaniin la fuliyo ayaa ka waajibaysa ruqsado lala noqda ka waajibaya cid alla cidii ku tagrifisho go'aamada waxa muxuu ahaayay kamida in xukuumaddu ay isticmaasho xeelado iyo tabo lagu xoojinayo awoodda bangiga dhexe waxa kamida in dawladda la fahanteedu ay isticmaasho lacagta Soomaaliland in lacagta Soomaaliland la isticmaalo oo ay joojiso dawladda lafteedu isticmaalka lacagta adag meelaha looga baahan yahay ee safaaradaha dibadaha iyo muxuu ahaayay safarada madaxda iyo waxyaalo kooban marka laga tago dhammaan in lacagaha la isticmaalo ayaa iyaduna kamida banka awoodiisa la xoojiyo waxa kamida waxaan xoojinaynaa kalsoonida banka Somaliland shacbiga Somaliland ku qabo si ay lacag u dhigtaan si ay u aaminaan waxaanu samaynaynaa waxa goluhu go'aansaday madaxweynuhu gudoomiyay in banka dib loo eego boardkiisi xeer banku leeyahay golaha wakiiladu ansixiyay boardna wuu leeyahay board madax bannaan oo dad integrity leh ay weheliyaan dadka madaxweynuhu magacaabo si ay kalsoonida wixii dhaliil dawladda ku aana ay toosiyaan wixii shacbigaana ay kalsooni u siiyaan arrimahaasi waxay noqonayaan go'aamada cusub ay kamid yihiin waxaan ku soo ururinayaa talaabooyinkaas aanu qaadnay waxaanu ku rajo weynahay inay hakin doonaan ruuxanka iyo dacaayadda iyo humaaga iyo dhibaatada shacbiga lagu hayo ee lagu kicinayo muxuu ahaa lacagta sarifka lacagta qalaad ee lacagta Somaliland lagu qiimo tirayo qarankani wuxuu leeyahay cumladda waxa waajiba in cumladda la isticmaalo waxaanu ku fulin doonaa arrimaha muxuu ahaa hab nidaamsan waxaanu ku fulin doonaa dabagal iyo kormeer waxaanu qaadi doonaa talaabooyin waafaqsan oo ummadan dan u ah qarankan aad iyo aad ba mahadsantiin